Shil la yaab ama kaagle ayaa waxa uu ka dhacay deegaanada koonfur bari ee dalka Norway kadib markii mid ka mid ah gawaarida booliiska oo roondo ku jiray uu ku dhacay gaari kale oo uu qof rayid leeyahay. Gaarigan booliiska ayaa lagu soo waramayaa in uu ku socday xaalad degdeg ah kadib markii laga soo wacay goob ay ka taagan tahay xaalad degdeg ah oo booliiska looga baahan yahay. Gaarigan booliiska ayaa waxa uu shidnaa nalalka buluugga ah oo muujinaya in ay ku socdaan meel ay ka jirto xaalad khatar ah. Waxa uuna gaarigan booliiska soo jaray wadada Samaafaraha oo markaasi ahaa casaan, wuxuuna ku dhacay gaari kale oo qof rayida uu watay ka oo ay wadada u ahayd mid cagaar ah ama Samaafaraha uu ahaa mid cagaar ah una sheegayay in uu iska socdo. Shilkan ayaa waxa uu sababay dhaawac xooggan oo soo gaaray qofka rayidka ah oo qoorta ka jabay, halka sidoo kale labada gaari waa kan booliiska iyo midka qofka rayidka uu watay ay soo gaareen burbur aad u xooggan. Sargaalkan booliiska ayaa lagu xukumay in uu bixiyo 14,000 oo koronka Norwejiga ah oo ganax ahaan ah kadib markii ay qaybta qaaska ah ee baaritaanadu ay ku xukumeen arrintan. Waxaana loo daliishaday xukunkiisa in uusan si taxaddar leh uusan isaga hubinin wadada iyadoo xaalad degdeg ah lagu jiro ay ahayd inuu hubiyo heerka uu gudbi karo iyo khatarta wadadu ay leedahay. Hayeeshee waxaa lagu eedeeyay sargaalkan in uusan hubin badan sameynin, waxaana lagu soo waramayaa in sargaalkan la faray in uu si degdeg ah ku bixiyo 14,000 ee koronka Norwejiga ah, haddii kalena kiiska loo gudbin doono maxkamadda uuna kasii cuslaan doono sida uu hadda yahay. Qiimeyntan lagu xukumay 14,000 ee koronka Norwejiga sargaalkan booliiska ayaa waxaa sameeyay qaybta qaaska oo u daliishaday in uusan ilaalin xeerarka taraafikada ee wadooyinka ee taxadirka dheeriga ah in la muujiyo ay farayso. Waxaana lagu soo waramayaa in darawalka rayidka ah halka lagu dabiibayo mid ka mid ah isbitaalada ku yaalo deegaanadaasi. Shilkan ayaa waxa uu ahaa mid la yaab ama kaag leh, maadaama sida caadiga ah marka booliiska, ambalaasta iyo damdamiskuba ay shitaan nalalka buluugga ah loo baneeyo wadooyinka oo xitaa ay sharciga u ogol yahay in nalalka samaafarayaasha oo casaan ah ama guduud ah ay ka tallaabaan. Hayeeshee waxaa waajib ku ah in ay iska hubiyaan dhanka kale gawaarida socoto haddii uu shil dhacane ganaaxan iyo kuwa kale in ay la kulmayaan ayaa halkaa ka muuqato. Halka warka kiisa ugu door karoon uu idinkaga imaanayo waa Somali Voice in Norway ama codka Soomaaliyeed ee Norway. Waxaan idinla socodsiinayay aniga oo Cabdulaahi Shiine.